Soomaaliyeed ee qaaliga ah, ma doonaysaa guurkaagu inuu noqdo mid guuleysta? Ma doonaysaa adiga xaaskaagu inaad isku agabowdaan? Haddaba dhowrkan qodobood samee. 1. Dareensii jacaylka aad u qabto, hana kaa aragto. Xanaanee jacaylka aad u qabto xaaskaaga, ha noqdo mid iyadoo gaar ah. Ha dareento inaad inay kaaga duwan tahay dumarka kale. Ha dareento inay kuu tahay number 1. iyadoo ma baahna inay ku tusto inay ku jeceshahay, sababtoo ah waxaaba kugu filan jacaylka ay kuu qabto in adiga guri keligaa kula nooshahay. Xushmad sii, weliba mid ay u qalanto mid ka weyn. Ha ku qaylinin weligaa, hana aflagaadeyn. Shaqooyinka ay guriga ka qabato sida cunto karinta ama nadaafadana appreciate garee oo ammaanta ay mudan tahay sii. Xitaa haddii wax khalado, ha dareensiinin, sababtoo ah daalka iyo rafaadkii u martay ma aha mid aad dareemi karto. Waqti la qaado, attention-kaagana sii. Waxaa laga yaabaa dhibaatooyin badan inay haysato balse ayna kuu sheegin karin. Noqo mid dareema, noqo mid weydiiya maalin walba maalinteedu siday ahayd, xaaladeedu siday ahayd. Noqo mid qodqoda oo soo faadfaara dhibaatooyinka ayna kuu sheegin karin. Marka ay kula hadlayso xaaskaaga, telefoonka meel iska dhig, TV-gana iska dami. Indhaheeda fiiri, ku mashquul iyada, warayso, la sheekayso, ka qosli oo ka farxi, oo mar walba ha dhoola cadayso. Hadiyaduhu ha noqdaan kuwa isdaba jooga. Inaad banaanka la aado xaaskaaga oo soo jawaab bedelatana ha noqoto mid jadwalka kugu jirta, isbuucii mar, bishii mar. Sababtoo inta dhalinyaro kale waqti la soo qaadan lahayd, ood kubad iyo wax kala soo sheekaysan lahayd, intaasoo idil waxaa mudan xaaskaaga. Aflagaadadu ha ahaato mid kaa fog, sababtoo ah dumarku ma ilaawaan hadallada qaar. Gacan qaadna warkiisaba dhaaf. Weligaa ha ku fikirin xitaa inaad xaaskaaga ku gacan qaado. Noqo mid fahma oo dareema. Jacayl keligiis wax ma taro. Nin walba wax jecel ma aha wax garad, laakiin nin walba wax garad ah waa nin wax jecel. Xaaskaaga waxaad awood u leedahay inaad ka keensato inay kuu guuriso xaas kale, laakiin sida rag badan oo Soomaali haddaan nahay aan sameyno ma ahan. No, yaan lagu kalifin dumarkeenu inay guuleystaan rag ajaaniba. Yaan lagu kalifin inay dareemaan ama ay u maleeyaan guurka inuu yahay gumaysi, sababtoo ah hadda gabar walba guur way ka carartaa. Walaalkayga Soomaaliyeed u ogolow xaaskaaga asxaabteeda inay waqti la soo qaadato mararka qaar. U ogolow inay la soo sheekaysato gabdhaha ay saaxiibadii inay banaanka waqti kula soo qaadato. Waxaad kaloo aad iskaga ilaalisaa inaad noqoto bakhayl, gacanta ka xiran. Xaaskaaga si wax walba u baahan tahay, weliba ma aha inay ku weydiisato. Waa inaad dareentaa intayna kuu sheeganin. Xitaa noqo mid u ogol inay shaqaysato si ayna guriga u caajisin. Walaalka Soomaaliyeed oo noloshaada ay gabdheenu ku nool yihiin aan wax ka bedelno. In yaroo nasiib badan moogiye intii kale noloshii loogu talagalay kuma noola.